magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa habeennimadii xalay lagu qabtay munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay loona soo gangimay. Munaasabadani ayaa waxa ku dabaaldegayay shacabka reer Jabuuti ee ku nool gudaha Soomaaliland. Xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, xildhibaano iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaa shacabka reer Jabuuti kala soo qayb galay xafladani ay ugu dabaaldegayaan maalintii ay qaateen xorriyadooda. Mas'uuliyiin isugu jiray wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano ayaa halkaasi ka hadlay, waxaanay hambaliyo u direen shacabka reer Jabuuti meel kasta ay ka joogaan daafaha caalamka iyo madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle. waa goob lagu dabaaldegayo maalin qiimo badan oo ka duwan maalmaha kale. waa maalintii aynu kicinay gumaystigii Faransiiska ee muddada badan ee boqolka sano ku dhow gumaysanayo dhulkeenna. waa maalin aynu u baahannahay inuu si gaara weynayno. waxaan leeyahay dhammaan shacbiga reer Jabuuti meel kastoo ay joogaan hambalyo hambalyo hambalyo. xorriyadda iyo gobonnimadaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. runtii sharaf weyn bay noo tahay dhammaanteedba inaannu idinkala soo qayb galno munaasabad aadka u qiimaha badan leh eed ku xusaysaan maalintii qarannimadeenna oo annagana ay noo tahay maalintii qarannimadayada oo aaminsannahay dalka Jabuuti iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay yihiin laba dal oo walaalaa. shacbiga reer Jabuuti oo u dabaaldegaya maanta sanad guuradii 45aad waxaan leeyahay inuu Ilaahay bashbash iyo barwaaqo sanadkaas sanadkiisa idinku gaarsiiyo dhammaantiinba. mar labaad waxaan idin leeyahay shacab ahaan iyo dad ahaanba waanu idinla faraxsanahay dabaaldega sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo Ilaahay idinku gaarsiiyo iyo nabadgelyo iyo horumarka dalkiisa ka socda oo sii waara insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay noqoto munaasabadii ugu horreysay ee lagu xusayay xornimada Jabuuti ee aan ka soo qayb galo. waxay ku soo beegmi jirtay munaasabadani anigoo safar ku maqan. marka intii safiirku inoo joogay ee xafiiskan uu furmay Jabuuti Somaliland ka furmay waa habeenkii ugu horreeyay ee aan ka soo qayb galo. waan ku faraxsanahay. ilaahay igu simayna waan ku mahadnaqayaa. waxaan leeyahay jaaliyad idin odhan maayo. waxaan leeyahay dadka reer Jabuuti ee dalkoodii labaad joogo insha Allah sida aniga Jabuuti laygu soo dhaweeyo waxaan rajeeyaa idinkana Somaliland laygu soo dhaweeyo. ciidamada xukuumadda iyo shacbi weynahaba waxaan leenahay hambalyo sanadka sanadkiisa Ilaahay barwaaqo iyo bashbash idinku gaarsiiyo. waxaan u ducaynaynaa geesiyaashii naftooda hurayaasha ahaa ee naftooda u huray si loo soo gaadho habeenkan oo kale oo u noqoto Jabuuti maalin xorriyada oo ugu mudan yahay Maxamuud Xarbi. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaantood. dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Xuseen Cumar Kawaaliye, safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya waddanka Somaliland. waxaan u hambalyo u diray shacabka reer Jabuuti meel kasta ay ka joogaan daafaha caalamka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa. waxaan xaggani ka salaamayaa marti sharafta xaggan u joogta reer Jabuuti iyo reer Somaliland dhammaantoodba. waxaan leeyahay hame wanaagsan. waxaan caawa joogno waa 27kii Juun baan joognaa. waxa weeyaan caawa 45 jirkii sanad guuraha ee Jamhuuriyadda Jabuuti weeyaan. waxaan haddaba xaggani aan ugu soo noqonayaa salaad kadib anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Jabuuti, magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, magaca marwada koobaad ee Jamhuuriyadda Jabuuti Marwo Khadra Maxamuud Xayd iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisa iyo shicib weynaha reer Jabuuti oo dhan daafaha adduunyada meeshay ka joogaanba iyo shicib weynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ee ku nool geyiga Somaliland oo dhanba waxaan leeyahay horta ciid wanaagsan. عيد مبارك عيد مبارك.
waxa weeyaan walaalayaal caawa waxaan leeyahay nin waloo reer jabuutiya daafaha adduunyada meeshu joog doolabaha ka joogo waxaan leeyahay ciid wanaagsan aniga oo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda jabuuti magaca madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele magaca marwada koobaad marwa khadra maxamuud xayd magaca xukuumadda jabuuti magaca shicibka jamhuuriyadda jabuuti iyo magaca jaaliyadda jabuuti ee ku nool adduunka oo dhan ilaa somalilan dhammaantooda ku noola waxaa leeyahay ciid wanaagsan maxamed suldaan telefishinka hoon kaybal hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed